halkan ka tagay 2008 halkan ka tagay xamar qaxootigaan tagay 3 sano aan joogo qaxootiga ardayaan ahaa markii macadkii dhamaadeen jaamacadan raadsido meel gaarsan lahaa u gudbiyo magaalada weyn ah jaamacad laga helo oo diini ah jaamacadii aan bilaabano jaamacadii marka wadaan waxaan noqday imaam iyo macallin aan noqday macallin madraso dugsi quraan ah iyo galin dambana waxaan dhigay maadooyinkan oo muxuu la af carabiga ku baxo oo shariicada kan waa Cabdi Fataax Cali Cumar maalina markii niman shabaab kamid ah oo markii wareysiga la sheegay wuxuu yiri gaaris waxaan qaban jiray shabaab meeshii ugu dhaweedaan sheegay marka niman ii yimid waxay dhahaniyow qof macquul ah tahay meeshaasna waa joogtaa waxaan rabaa inaan xiriir kula sameeyno sanadihii 2008 iyo 2009 ayuu galay Kenya laakiin wuxuu kaga soo cararay in loo ciqaabo xiriir dhexmaray isaga iyo rag ka soo muuqday maxkamadaha Kenya kuwaas oo loo haysto weerarkii Westgate ee dhacay dabayaaqadii September 2013 marka Nairobi anoo dhowr muddo joog 9 bilood aduu sanad ku dhow anin kale dir oo saaxiibana asna macallin ahaa la qabtay markii la qabtay nin aad isku wacnana uu ah oo xiriir muxuu ah naga dhaxeeyo asna waa tashkiilin jiro oo dhigi jiro waxaan meel qaldana taagantii ictisaamkiina nimankeena soo raaca anna waxaan dhigi jiray shabaabkiina meel cilada taagantii anna soo raaca dad isku gambado ma ahayn masaajid waan kala lahayn islamadu ku jirna xataa maalintii la qabtay marka wadankaas sirdoonkiisu waa sirdoon aad u horeeyo waxaan iri marka khadar yuusan ku galaafsanin daraadeed aan aniga xaq ugu soo tagay halkan waxay maad 2015 uu Muqdisho ku soo noqday kadib waxa uu ahaa wadaad malcamad lagu barto diinta ay uga furan tahay dharkeenley laakiin wax walba waxay isbedeleen markii uu doortay fiirsashada film Hindi ah waxaan dib iiga iimaanaynin waxaan horta wax qarsoon ma jiro inaan wax cadeynta runta aan ka sheego haddana rag badan oo shaleemo soo gali jiray ama guriyooda ka fiirsada waa joogaan filmkan waa la heli karaa saddex nin ma toora ka ah saddexdan nin dad hubaysan ma ahan dawladdiina waxay ka qaataan muxuu ahaaye baad iyo muxuu ahaaye sheeg bahalaha socdo marka filmku wuxuu ku saabsan yahay saddex toor aan hubaysnayn daarta magacadan sheegaa يا سيف على قان يو أسبوعك كلام أقل لكن سدح وهلي كرتي معنا سدح ذنبا معنا سي كم بين مرك هذا وجودهم يوداون كرتا وديب وبارك كرتا كورن هدو كده قفه هيبة كم وقته وليبه وتجار الراحة ولا لي وعاء تلفون كاجا كيجا يا جدا سنة واحد ربع قف كجرا جوري عن قروح ذا بدنه كبس وقادنا تاجنتين وده مكان المكرمة ما يا قف كي صعد ده qofka inuu socdo inaan weydiyo macnaha meesha uu socdo xagee rabtaa xagga ma rabtaa dhankaas ma rabtaa hore u sii qaad markaas kabacdi marka qofka aan dib u geysan hubna aan ula soo bixin inaan dhaho qofka lambarkaaga ii sheeg telefoonka markuu dhiibo marka aan gaariga dhaqaajiyo haddii saaxiib uu ka dhigtay ka waran inaad wadaadaan hotelka dabeedna uu kugu yiraahdo telefoonkan wifi kugu soo xiro ama qof ayaan ka wacanayaa maya qaar waxa jiro hotel ah ya maya dadaan isbarano isballaminay waan xiriir naga dhaxeeyay kabacdi markaan meesha wada tagna markii aan qofkii aan dhaho telefoonkaagii bal intii wax naloo keenay adeega muxuu aan ku dadaahno telefoonkii dib qofkii aan dhaho ama qof aan ka waco ma kadibna aan saas uga tago kaaga darana ka sheekay haddii telefoonka lagaga qaato walaashay oo qurbaha jirto ayaa kula eg fadlan carwada ii raac si aad ila xusho labiskeeda kadib intaad ku jirto qolka isku jimeynta dharka boorsada iyo telefoonkaagii ma ku weeday maya okay iyo carwo macnaha waxaa jiro meelaha dharka lagu gado kale in aan dadkiis la tagno qofkii marka inuu dhar isku cabiro dharkii uu gashto kabacdi markii intuu gashana aan ka tago carwada waxay leedahay meel lagu labisto oo miraayada oo qofku markuu dhar gashanayo oo isku fiiriyo marka qofkii inuu sayskiisa cabirkiisa yahay dharka soo iskugu fiiriyo daraadeed
markuu gudaha gala marka aan alaabtii wuxuu ii dhiibna aan tartiib aan kala tago. cabdifitaax cali cumar iyo nuur cali xasan 30 Juun sanadkan ay ciidamada amniga gacanta ku dhigeen kadib qof dhibana ah oo ku wargeliyay booliiska isagoo isticmaalaya nambarka wicitaanka gaaban ee 991. nuur cali xasan waa caawiyaha cabdifitaax waxa uu sahlaa iibgeynta moobilada uu siyaabaha kala gedisan ku soo xareeyay. fadhiyo kala duwan kadib waxay maxkamadda ciidamada soo gabagabaysay dhageysiga kiiskan 8 bishan. maanta ay maxkamadda ku kala xukuntay cabdifitaax cali cumar 10 sano oo xabsi ciidan ah halka ay 2 sano oo xukun xabsi ciidan ah ay ku riday nuur cali xasan sida uu sheegay warbaahinta gaashaanle sare xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida. xukun sanayaasha ayaa haysta fursad ay ku dalban karaan rafcaan. cabduqaadir ciise warbaahinta qaranka Muqdisho.